Rabadaan Kareem daawade ku soo dhawow mar kale barnaamijkeeni Top 5 ee YouTube-ka dhalinta qurbaha. Barnaamijka Top 5 maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 5 magaalo ee ugu weyn uguna dadka badan Soomaaliya. Kismaayo waa magaalo madaxda gobolka Jubbada Hoose waana caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. waxay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho u jirtaa 483 kiiloomitir waana magaalo madaxda shanaad ee ugu weyn uguna dadka badan Soomaaliya. waxaa ku nool dad gaaraya 471 kun oo qof. Burco waa magaalo madaxda gobolka Togdheer waxa ay dhacdaa waqooyiga Soomaaliya. waxay haatan hoos tagtaa maamulka Somaliland. waa magaalo madaxda afaraad ee ugu weyn uguna dadka badan Soomaaliya. waxaa ku nool dad gaaraya 486 kun oo qof. Boosaaso Deeqa waa magaalo madaxda gobolka Bari waxa ay dhacdaa waqooyi bari Soomaaliya. haatan waa xarunta ganacsiga maamulka Puntland. waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Soomaaliya uguna dadka badan. waxay hoy u tahay dad gaaraya 965 kun oo qof. Hargeysa hoyga fanka waa magaalo madaxda gobolka waqooyi galbeed ee Soomaaliya. waxa ay ahayd caasimadii labaad ee Soomaaliya haatanse waa caasimadda maamulka Somaliland. Hargeysa waa magaalada labaad ee ugu weyn uguna dadka badan Soomaaliya. waxaa ku nool 1,223,000 kun oo qof. Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya waana magaalo madaxda gobolka Banaadir. waana magaalada ugu weyn uguna dadka badan Soomaalida. waxay hoy u tahay dad gaaraya 2,282 kun oo qof. daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan oo aad jeceshahay inaan soo badino muuqaaladan oo kale fadlan like saar muuqaalkan subscribe na dhaho channelkan commentigana nagu reeb fikirkaaga. mac salaama.